bismillahi raxmaani raxiim magacay bayaan ku bilaabaya halkan nagala socotaan waa calas 24 bosti youtube-ka cusub walaalayaal kusoo dhawaada waxaan iisoo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyey ee caalamka gaar ahaan eastern europe ilaa poland ilaa romania ilaa baltica ilaa germany ilaa ukraine xaaladdu aad ayay ku kacsan tahay goor dhoweyto ayaa wararka ugu dambeeyey ee aqalka cad waxaa saxaafadda la hadlayey gabadha la yidhahdo magaceeda elisa oo ah afhayeenka dowladda maraykanka waxaana sheegtay dowladda maraykanka inay tilaabo la socoto xaaladaasi dowladda maraykankana waxaa ka go-an inay u dirto saaxiibadeeda eastern europe ciidamo fara badan ayaana halkaa geysay maanta ilaa 3 kun kor u dhaafaya iyo oo wata dabaabadahooda waxaana soo dhaweeyey shacabka iyo ciidamada dalka Poland walaalayaal xaaladda ugu dambeysay iyo wararka ugu dambeeyay ayaa niisoo gudbin doona saacadaha ugu dambeeya anytime ayaana la filin karaa in dagaalku dhaco wasaaradda gaashaaniga ee dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay laftigoodu inay si dhow ula socoto wasiirka gaashaaniga John Kirby ayaa wuxuu u diray fariin madaxweynaha dowladda Ruushka Putin iyo caalamkaba wuxuuna yiri fariinteedu waxay ku socotaa Ruushka waxaan ugu digaynaa inuu ku sameeyo dalka Ukraine invasion walaalayaal saraakiil sarsare oo maanta tole la kulmay madaxweynaha dowladda maraykanka Joe Biden ayaa saraakiishaas 6 saacadood oo hadala markay lahaayeen albaabadu xirnaayeen ayaa waxay soo saareen in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda oo dowladda Ruushku 170 ay qorsheynayso inuu weeraro dalka Ukraine gaar ahaan caasimadda dalka Ukraine inuu qabsado Kiev waxaana sheegay saraakiishaas markay la kulmeen madaxweynaha dowladda maraykanka ay u soo bandhigeen in weerarka uu geysan doono dalka Ruushku uu ku dilin doono ilaa 50 kun kuwaas isugu jira ciidamo iyo shacaba xaaladda aad ay u kacsan tahay waxaana ka digaysaa dowladda maraykanka mar kale ayuu hadlay wasiirka gaashaanigu oo yiri fariin kale ayaanu u diraynaa oo hawada u marinaynaa maraykankuna ma hurdo hurdada waana ka kacnay neeta ayaana la yiraahdaa annaga cashar ayaan u dhigin doonaa dowladda Ruushka caalamkuna taa ha ogaado falanqeeyaal iyo xeeladayaal xaaladda la socda ayaa ayaguna ka hadlay waxayna yiraahdeen anytime ayuu dagaalku bilaaban doonaa xaaladuna ma sahlana waxa waana ilaa hadda lama sheegin waxaan kaloo la sheegayaa madaxweynaha Faransiiska inuu ku wajahan yahay dalka Ruushka gaar ahaan Moscow asoo la kulmi doona dhigiisa dalka Russia halkaas oo bal xaaladda si loo dejin lahaa oo kala hadli doona madaxweynaha Faransiiska xaaladda aad ay u kacsan tahay Turkiga waxa la rajeynayaa latigiis inuu dhexdhexaad ka qaadan doono inkastoo Chinesku ay la safteen dalka Russia North Korea maanta waxay tijaabisay gantaalo aftigooda dalka Poland aad ayaa lagu soo dhaweeyay maanta saraakiishii iyo ciidamadii ee askarta tagtay halkaas oo heeso lagu qaaday iyo gabayo lagu soo dhaweynayo waxaana lagu yiri soo dhawaada walaalaha reer Mareykan oo Poland waa dalkeenii waxaan ka difaacan doonaa cadawga ku soo duulaya Eastern Europe iyo wadanka Ukraine waxaan u wada dhiman doonaa anagoo mid ah waxaan niisoo dhaweyn doonaa sidii kalgacal iltinimo ay ku jirto iyo walaaltinimo ciidamada maraykanka ayaa aad u faraxsanaa waxayna la shaaheynayeen ama la ciyaarayeen ciidamada kale ee Poland oo walaalahood ah si ay hadalka u sheegeen daawadayaal dhageystayaal halkan nagala socotaan waa calas 24 bosti youtube waxaana niisoo gudbin doonaa hadda jeerba warar hufan oo ku saleysan xaqiiqda aad nooga dheehataan wararka ugu dambeeya ee caalamka iyo xaaladda kacsan haddii xaaladda dalka Ukraine uu invasion ku sameeyo ama uu weeraro Ruushku walaalayaal waxaad ogaataan in la isku adeegsan doono hubka nuclear-ka sidaa daraadeedna haddii nuclear-ka la isku adeegsado caalamka waxa communication ah iyo wax isku gudbaya iyo wax socdaal ah midna ma jirin doono waxaan laga baqayaa dagaalka saddexaad inuu dhaco anytime dalka Poland ilaa hadda waxaa kusoo qulqulaya ciidamo aad u fara badan dowladda maraykankuna waxay sheegtay ciidamada inay kasoo daabulayaan ilaa Romania ilaa Germany xaaladuna waa kacsan tahay wasiirka gaashaaniga ee dalka Germany oo hadashay goor dhoweyto waxay sheegtay in ay ciidamo u dirayaan Baltica laakiinse aysan siin doonin saanad military dowladda Ukraine walaalayaal waxaad ogtihiin Faransiisku inuu halkaa geeyey taangiyadiisii iyo hubkiisii ugu faraha badnaa dowladaha Sweden ilaa Norway ayaa iyaguna u diray halkaas ciidamo walaalayaal waxaa kaloo la socotaan in xaaladdan ay ka duwan tahay sidii dagaalkii labaad oo kale ee markaan haddii ciidamada dhulka ee Ruushku ay galaan halkaas in la isku adeegsan doono hubka noocyadooda kala duwan sida diyaaradaha gantaalada haddii wax la iskaga qaadan waayana aakhirka waxay tegi doontaa xaaladda nuclear-ka ilaa labada dhinac midba mid uu dhinac u turin doono xaaladuna waxay tegi doontaa sidii Hitler uu sameeyay oo kale ilaa askari ugu dambeeya oo dhinto inuu Moscow qabsado ayuu doonayay
laakiinse asaga yahay xaaladda ku biyo shubatay ilaa laga qabsaday caasimadii dalka Germany-ga. Hadda xaaladdu waxay ku socotaa haddii Ukraine uu Ruushku qabsado in Ruushka dooro mid la yiraahdo in dagaalkaas uu soo dhammaan oo ilaa Moscow qabsado aan la istaagin, ama Ruushku ilaa uu qabsado ilaa Berlin, ilaa Paris, ilaa London, xaaladdu ay sii degin doonin. Mareykankuna wuxuu soo daabulayaa maraakiibtiisa ugu waaweyneed ee ku sugnayd bariga dhexe ilaa Atlantika. TV-ga la yiraahdo RT-ga ayaa maanta wuxuu sheegay in ciidamo aad u fara badan oo gaari 6,000 ay wateen 6 maraakiib, kuwaas oo maanta tegay dalka Syria waxaana ku soo xirteen dekedda la yiraahdo Turtos. Walaalayaal, maraakiibtaas ciidamada leeyihiin Ruushku waxaa la sheegayaa inay halkaas dhoolatus u tageen. Haddii ay xaaladda faraha ka baxdana ay dagaalka toos u gelin doonaan. Xaaladdu ma sahlana walaalayaal. Ruushku meel walba wuxuu u diray ciidamo iyo maraakiib iyo diyaarado. Wuxuu ilaa hadda Ruushku ciidamo ku daabulayaa Belarusia oo xuduud la leh dalka Ukraine. Walaalayaal, waxaa la socotaan waa